بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta oo taariikhdu tahay bisha koowaad 16keedii 2020ka magaalada Boosaaso ee madaxda ganacsiga u ah Puntland ku soo dhaweynay wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdigiisa waxaan aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda baarlamaanka garsoorka isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta halka joogay soo wada dhaweeyay waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa gacmo furan magaaladoodii iyo deegaankoodii in ay yimaadaan waxaan ku faraxsanahay iyada oo muddadii uu xilka hayay markii ugu horeysay uu Boosaaso soo booqday ay tahay dhowr jeer hore uu garow iyo gaalkacay iyo marar kala duwan u yimid waxay noo tahay sharaf gaar ah maanta booqashadan magaaladan waxay u tahay sharaf gaar ah saad ogtihiin Puntland iyo Jubbaland waa laba maamul goboleed ama labada dawladeed xubnaha dawladda federaalka ee dhismo ahaanna ugu horeeyay Puntland oo horeysay inta ka dambeysana Jubbaland ay ahayd midii labaad waa labada maamul labada cirif ee Soomaaliya la sheego Ras Kamboni iyo Ras Caseer Dardafuur ay ku kala yaalaan waxay muujinaysaa midnimada Soomaaliya oo dhan labadii daraf waxay u tahay sharaf Puntland inay soo dhaweyso madaxweynaha iyo maamulkiisa magaalada Boosaaso iyo Puntland muddadii xilka cusub loo dhaariyana meeshii ugu horeysay oo Soomaaliya inuu booqdo inay noqoto Puntland sharaf gaar ah noo tahay waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaan madaxweynaha iyo maamulka Jubbalandba iskarab istaaga midnimada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarka siyaasadeed Soomaaliya qaybta ay ku lahaayeen inay sii xoogaysato runtii Puntland oo mar walba dhismaheedii hore iyo doorashadii labaad mar walba garab taagnayd waxay wali u muujinaysaa inay garab taagan tahay horumarkooda iyo maaragtay horu socodkooda maamul inay qayb ka qaadato marar horena gacan weyn ka geysatay haddana waxaan rajaynaynaa Jubbaland iyo maamulada kaleetaba maadaama ay ahayd maamulkii ugu horeeyay inay ka qayb qaadato dhismaha nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya uu qaatay waa nidaam ku cusub dalkeena waa nidaam u baahan fahamkiisa u baahan waqtigiisa marar badan waxay Jubbaland iyo Puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federalismka xaq dhowrka xeerarka iyo dastuurka iyo geedi socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan Soomaalida inteeda kaleeto iyada oo magaalooyinka ama isteediyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaarto hadalkeenu hadda waa soo dhaweyn iyo marxabaysiin waxaan rajaynaynaa muddada ay nala joogaan wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan labada maamul iska kaashanayaan iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliya inaan ka wada hadli doono saxaafadana mar kale la wadaagi doono aad baa u mahadsantahay madaxweyne soo dhawaad waxaan rabaa madaxweynaha labada gole isimada dhammaan bulshada kale ee reer Puntland gaar ahaan reer Boosaaso iyo soo dhaweynta aad iyo aad u qiimaha iyo qadarinta badnayd ee nagu soo dhaweeyeen magaalada Boosaaso oo aan isleeyahay waqtiga laftirkiisa uu nacaawiyay xagaa maanaan imanin inaan aad uga mahad celinayo soo dhaweyntaas aanan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin sharaf bayna noo tahay inaan maanta Boosaaso imaado waan garowe dhowr goor baan laakiin hadda sida madaxweynuhu sheegayo 90kii ay ugu dambeysay Boosaaso waliba may ay ahayd bil kulul ah aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Boosaaso imaado iyo inta ka muuqda iyo garoonkan ka soo degay baa igaga filan wax badan oo laga baahnaa Boosaaso si gaara
weliba u ah marka laga hadlayo magaalada ganacsi ay u tahay Puntland ka sokow Soomaalida cusub waxaa la yiraahdaa Boosaaso laga dhisay markii uu jamhuuriyadda cusubada la dhisay dhaqaalaha Boosaaso inta badan saldhigu ah taa waa mid ay reer Boosaasana mudan yihiin oo rabayna aad uga mahad celiyo taariikhda ku leeyihiin inta waxay dheer waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah aanan jecelahay insha Allah inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya iyadoo Puntland ay tahay hooyadii federaalka ilaaliyaha federaalka iyo systemkan maanta lagu jiray dawladnimada ay gundhigu ahayd iyo isteedyada kaleba inaan isweydiino bal maxaa dan guuda maxaa tu gaaro labada isteed ka dhaxaysa maxaa inala gudboona samayn karaa xagee loo socdaa talooyin badan oo aan isweydaarsan karno iyadoo anaga Jubbaland odogtiin inay idinkana dambeysay wax badan oo khibrad iyo waayo aragnimo aan uga baahanahay Puntland waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekedaheeda iyo wax badan inaan rajaynayo inaan wax badan ka kororsan doono warku uu dambeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxay ahayd inaan idin mahad celino soo dhaweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer Puntland oo dhan iyo gaar ahaan reer Boosaaso waxaan rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah sida ay u tahayba inaan Boosaaso u soo gudubno inaan insha Allah wax kale oo si fiican ay ka sii noqon doonto aad baan madaxweynaha idinku mahad celinayaa iyo dawladda iyo odayaasha waxaan idin rajaynayaa insha Allah meel fiican baad maraysaan inaad sii socotaan annaguna aan idin soo gaarnaa ilaahay